markana weli waxaa taagan oo aan xal laga gaarin khilaafka u dhexeeya xukuumadda Puntland iyo hoggaanka ciidanka PSF iyadoo magaalada Boosaaso laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in cabsi laga qabo in xaafadaha qaar laga qaxo arrintaas oo ay dowladdu ka digtay. Arrintani ayaa imanaysa kadib markii dhowaan uu madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni uu soo saaray xeer madaxweyne oo uu ku magacaabay agaasimaha cusub ee hay'adda PSF, balse hoggaanka hay'addaasi ayaa magacaabistaasi iyo xilka qaadistii agaasimihii hay'addaasi ee PSF ku tilmaamay sharci darro. Faafaynta warkaas waxaan goordhow weydiiyey wariye Maxamed Xasan Dhalo oo ku sugan magaalada Boosaaso. kawsare waa mahadsan tahay magaalada Boosaaso saaka waan soo marmaray meelo badan oo ka mid ah laakiin muddooyinkii ugu dambeeyay ama 4 bari ugu dambeysay magaaladan waxa ka jirta saameyn ku yeelatay khilaafkii madaxtooyada Puntland iyo PSF ciidamada la yiraahdo u dhaxeeyay ciidamo badan baa magaalada yimi oo labada dhinacba ah sidoo kale to hadalla ayaa dawladda iyo PSF isdhaafsadeen isimadii Puntland oo shalay ka hadlay ma ay sheegin dhexdhexaad inay ku jiraan laakiin nabad ayay ku baaqeen wararku ilaa iyo iminka meelahaas ay marayaan. Dawladdu waxay ka digtay in xaafadaha qaar laga qaxo waxaana ciidamada PSF ku eedeeyeen inay dhufayso ka qodanayaan xaafadaha qaar. Markaas maxaad kala socotaa? kawsare shalay taliyaha qaybta booliiska gobolka bari ee gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir ayaa shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa waxa uu sheegay in xaafadda la yiraahdo Ridwaan oo ciidamada PSF ku ay ku leeyihiin Harun in ay dhufayska ka qodanayaan dad la soo xiriiray booliiska ayuu sheegay inay dalbanayaan in la caawiyo oo ay xaafadahaasi ka qaxaan marka ciidamada ayaa ku eedeeyay PSF warka kama ay jawaabin laakiin taliska qaybta booliisku waxa uu sheegay shalay inay jiraan xaafadda Ridwaan dad ka qaxaya oo u qaxaya magaalada xaafadaheeda kale. maxamed dabcan saaka magaalada ayaad soo dhex martay marka waa sidee xaaladda guud ee magaalada Boosaaso? kawsare saan markii hore ku bilaabay magaalada xaafaduhu inta badan magaalada tani waa magaalo xeeb ku taal oo dadku ay hore u soo toosaan oo waliba gobolka bari ku taal cirifka oo cadceedu mar hore ka soo baxdo marka magaalada sidii loo noolaaba wali loo nool yahay waa la iska soo toosaya dadkuna waa shaqo tag sideedii baa la isu dhaafayaa gawaarida dekada ku socda iyo kuwa xamaalka ee kuwa shaqada iyo dadka meelaha fiiqfiiqaya iyo meheradaha la furayo iyo way ku muuqanayaan laakiin waxa jirta cabsi ay ka qabaan dadku in mar walba ay xabad ka qaraxdo. Boosaasana waa magaalo dadku ku badan yahay oo kamid ah magaalooyinka ugu weyn Puntland oo uguna dadka badan marka saaka noloshu sideedii caadiga ahayd bay u socotaa laakiin way jirtaa cabsi dadku ay qabaan sida ay sheegayaan marka dadka la sheekaysan. kaasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Xasan Dhalo oo ku sugan magaalada Boosaaso oo faafaynta warkaasi nala socodsiinayay aan Facebook markaan fursadda siiyo dhageystayaasheena iyo qodobkaas waxay ka yiraahdeen Maxamed Caawil Axmed oo jooga Boosaaso waxa uu leeyahay cabsida laga qabo in laga qaxo xaafadaha ka agdhow goobaha ay ciidamadu joogaan runtii waa mid jirta oo la dareemayo waxaana loo baahan yahay in laga baaqsado dagaalka markasta laga filan karo magaalada. Arrinkaas oo uu horseed u noqon kara buu leeyahay Boosaaso inay noqoto magaalo laga qaxo ciidamadana waa in shacabka laga kor qaada. Faarax Maxamed oo ka soo qoray degmada Balanballe isna waxa uu leeyahay runtii aad baan uga xumahay cabsida ka taagan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland waxaan ugu baaqayaa labada dhinac ee khilaafka uu ka dhaxeeyo inaysan dadka barakicinin isla markaana ismaandhaafka jira wada hadal lagu dhameeyo baaqa labada dhinacna uu halkaa ka sii socdo. hagaag waxay hayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC da ee Facebook weli idaacadda subaxnimo ayaad dhageysanaysaa.